awrta waaweyn marka arkaysan badankoodu waa 12 milyan 12 milyan 9 milyan weeyaan geela xooluhu amba aad ha noqdaan amba loo ha noqdaan amba geel ha noqdaan waxa la oran karaa qiimihii sanadka ugu sareeyay ay maraya awrkii 60 milyan lahaa 12 milyan iyo dheeraad buu maraya ariga ulxada 130 waa la kala sanaya 120 waa la kala sanaya 110 waa la kala sanaya 100 intaas uu taagay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي على سعودة وهذا مركز لي مقال عصب وحن شوقنا برتمها سيلة مقالة رجيسة حلقان ويكون أنت حلقة يدعى رصدة حولها آتك اللغة شو وحن ذات كلكم شوقوا حكم يدون دون قيمها نفق حولها إياها الكاين مريان يسوع كلا أرجع لقدوا في سيلة مقالة رجيسة سعودة صاحبي على مركز لي مقال عصب فضلا هتوقع عصب تسبسكرايب صار صاحبي بدل وذاك مقال كنا بلدرجاش صاحبي على سعودة وهذا وحن شوقنا برتمها سيلة مقالة رجيسة ninkan odayga oo kamid ah dadka xoogaalka Seelada magaalada Hargeysa jooga waliba qaybta geela adeer soo dhawow waxaan joognaa Seelada magaalada Hargeysa geelan wax xoga Seeladan jooga wax xoga dad ka hayso oo la xiriira maxay heeday qiimaha iyo bal sida loo iibsanay xilligan arafada ay nooga warramay dalada assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa Cabdisalaan Siyaad Cabdillaahi geela waan warhayaa geela sixiirkiisa aan kaaga warramo geelu waa qaali awrta waaweyn marka arkaysan badankoodu waa 12 milyan 12 milyan 9 milyan weeyaan geela hoose waa 5 milyan 6 milyan 7 milyan 8 milyan adugu waa seylid xoolo walba neef weyn baa imanaya neef yar baa imanaya xoolo wax walba nooc walba way leeyihiin waa sida wadanka kale yihiin haseesha xoolo caafimaad qaba oo fiican oo si fiican loo iibsanayo weeyaan caafimaadkoodu fiican boqolkiiba boqol waan la iibsanayaa waana caafimaad qabaan iibkooduna waa wax waasa weeyaan waa guurtaaga lagama waayada magaalada saaxiibka lagama waayay si fiican baan gartaa ay arafadan isbedel ma qiimahoodu miyuu kordhay mise maxay waa sidii horon maya wuu kordhayo wadanka oo dhan ba ariga geelo kaliya maaha ariga iyo geel arafadii ugu horeysay xoolo qiimaha gaadhaan weeyaan waa arafadii ugu qaalisanaa way xooluhu aynu wadanka soo marnay arafadii ugu qaalisanaa ariga geelba waa arafadii ugu qaalisaneed weey ayo gala awal hor waxa lagu maqali jiray arafadeedii oo kale waxa 8 milyan iyo 9 milyan baa sareeyay maantana dhowr iyo 10 milyan marka awrkaas oo kale dhowr iyo 10 milyan baa la kala siistay marka waxa weeyaan tan hore inoo soo tii ugu qaalisaneed weeyaan arafadii ugu qaalisanaa ariga geelba way ariga awal hore 70 iyo 60 iyo 50 baa lagu kaxaysan jiray sanadkana 120 130 190 maalmo u dambeeyay buu yar ciiro 90 gaaray iyo 110 marka arafadii ugu qaalisanaa weeyaan sanadkan xoolaha geel iyo ari iyo loodu 3 milyan 2 milyan iyo milyan 500 bay ahaan jirtay tiribka waa 5 milyan 6 milyan 10 milyan tooni ma caladu gaadhay dibada waaweyn loodii kala caadi yahay 5 milyan 6 milyan bay gaadhay sanadka waxaan tan ka sii yaabanay sanadka arigood xadaha reer Hargeysa jecelaayeen waxaan ka yaabayay in sanadka aad noogu sii qaal garooba wixii hore ka sii tago halka jilmadii 120 laga siisanayay waxaan filayaa markay noqoto neefkiina hadalkeeda badaa ka waxaan marin sanadka in loo doono in aad loo hadalhay marman kalluunka inuu ku cimilo xagooda aad si qaal garoon xoolo tolo kalluunka ma galaya asxada soo dhawow walaal adu magaca ku bilaabaya bal adu waxaad ka mid tahay filaya qolada marka geel qashay iibsata geelan sanadkan qiimihiisu mid ku badnaa mise qiimihi horan buu la mid ah bismillaah aad baan u dhunahay waan islaamna dhamaantiinba sanadka xooluhu amba aad ha noqdaan amba loo ha noqdaan amba geel ha noqdaan waxa la oran karaa qiimihii sanadka ugu sareeyay ay maraya awrkii 60 milyan lahaa 12 milyan iyo dheeraad buu maraya markii looduna 3 milyan iyo xasaa ugu badnaa 8 milyan 10 milyan buu go'ay dibkaasina neefkii ariga haaye 400 300 haaye wanka hana milyan 300 iyo milyan 400 buu maraya waxa la oran karaa dee bulshada Soomaalida sanadka dib isku qabto bisikaaw haw qabtaan waxa markaa sababay inuu geelo amba arigu xooluhu guud ahaan ay qaal noqdaan sanadkan adigu waa Ilaahay baa u nibciyay cidna go'aan ma lahe waa qiimaha la gaarsiiyay
annaga si kasta xooluhu qalaan nagu qaadaan oo annagu milmiyaalbana waanu qalaynahay laakiin kulli ciddii ku tabacday ee soo dhaqaalaysay ayuu qaaliyoobay waxaa laga bisuka loo qabto fataha loo maro. Assalaamu calaykum. soo dhawo hooyo waxaan joognaa silada magaalada Hargeysa waliba waxaan joognaa qaybta geela bal waxaad nooga warantaa xogta siladan aad ka hayso geela lagu iibinayo qiimihiisa iyo maxay ahayd waxyaabihii kugu leeyahay badnaa intii arafadan waliba waxay la yaab badnaa xoolo dhan oo halkaad keentood waayeysaba gebigoodba adiga baaqa lagugu yeelanayo oo adigoo safara hay oo deedna aad isku dhex waalanayso markaasaad ciddaad wax ku lahaydba waad gara waayeysaa dawaqaadii ugu horreysay waa taa anu maalin dhawaad dhiiggaabay ku kacay kolkaan waxaan wadayba waayey markaa imika shaqo kalena ma garanayna tiina wayna gabtaybo yaabana dee dadkiiba magaalada ka dhoofayaana waxay leeyihin lacag baan weynayo mooyaan si ay yidhaaheen lacagtii malaa carruuraa ka taariibay bay ku bixiyeen belahay ku bixiyeen aqalay ku dhisteen iyagoo madhan unbay soo noqonayaan ma hayno marka lacagtii bayna ka helin dadka lacagtii baanu ka laanaaya bal ilaahay farash kale inuu noo keeno ilaahay noo bari maama soo dhow adoo magacaaga ku bilaabay waan dhowahay maamo saare xuseen ismaan baa la yidhaahdaa waxaanu nahay qoladan sayladda xidhatada baanu nahay maasha allah dee ariga maalinba waxaa la nagala kulmiyo ayaana laga soo siiyay oonu soo iibsanay amba ida ha noqoto amba riya ha noqoto amba wanaan ha noqoto haa sax maamo talow ma la odhan karaa iidan iyo iidii hore xoolo way kala qaalisan yihiin haa maamo wax badan bay ku kala bedelan yihiin arigu abaara iyo waxbaa jira sanadka ma badna waa qaali aan sanadka maanta ayaamihii berigii hore laakiin ciidu ka badnaayo mid jaban iyo mid qaaliyaba waa la heli jiray laakiin sanadka maanta waa wada qaali $260 $150 $140 inaasun baa imika ku meersanaya laakiin waagii hore 100 baa la heli jiray 110 baa la heli jiray oo ka jabnaa berigii hore ariga ka badnaa oo ka barwaaqo sax oo hooyo imika talo la odhan karaa ninka idinka inuu sidii ku joogaan neefka ridii wuxuu nagu joogaa hadii dollar ahaan loola kaco 120 130 iyo neefka ridii nagu joogaa ilaa 110 inta u dhaxaysan nagu joogaa sax idinkuna maxaa markaas sii siinaysaa anaga hadii $3 noo fuushiyo hadii $4 noo fuushaba nasiibkaygu baan ka qaadnaa maalinta waxaan keensan ilaa macal $1 hadii idin fuusho caadi soo noo fuusho waan nalaga iibsadaa hadii 3 noo fuusho nasiib hadii 2 noo fuusho nasiib aad iyo aad u maasantay ay hooyo adaa mudan soo dhow hooyo adoo magacaaga ku bilaabaya waxaan joognaa silada magaalada Hargeysa bal ariga sanadkan ka waran arigu waa nimco horta magacayga Caasho Daahir Ibraahim baa la yidhaa arigana waan iibsadaa waan ka ganacsadaa waa yar iyo waxba badan toro lama dhaw la dhargayaa mar walba alxamdulillaah rabbil caalamiin nabadgelyo baayac mushtar haddii aan leeyahay caafimaad waanu haysanaa ilaahay baa naga wanaagsan laakiin dawladdii isbedelkii weli waxba noo yar dhimanoo halka iyaga shacabka iyo dee aad noomay soo gaarnay waxaan leenahay horta xagga sayladda dad badan oo dan yarahoo haddii la odhanayo aan dee yaa jira dad ganacsanaya dadku waa dabaqadoo dee waa la kala sarreeyaa markaa weli dee dawladdii ma haynee u kaadiya un baan leenahay dee bal horta weli way soo galgalanaysaaye dee dawladdii weli xagga iyaga waxba uga dhimanee naloo soo dadaalaanu leenahay weliba dumarka iyaga ganacsatada ee carruuraha koriye dhallinyarada ee jaamacadda carruurta iskuulka mascadarisadda waanu rafaadaynaa waxaanu istahay waxbaa dee isbedelayo waxbaa soo kordhaye in qiimana lagama dhimin haddii aloonay caawimo ma qabno shaqo ma qabno dhallinyaradii wixii ma garanaysaa ay jaamacadaha ka baxay guryaha ay fadhiyaan marka dawladdii isbedelkeedii weli waxba kama hayno xagga yaga hala soo eego hanaloo soo dadaalaanu leenahay waananu ducaynaynaa mar walba ilaahay idamkiisa amniga iyo arsaaqadana allah inoo waasiyo amnigana allah inoo adkeeyo aamiin insha allah meesha ugu dambaysan ku dinay xawey ariga sanadkan qaabka loo iibsanayay ka waran ariga si fiican baa loo iibsanayay markii hore waanu baqanayna waxaanu tahay arigu uu ku barqaaya laakiin waaba laga kacay arigoo soconaya oo dhamaaday wali waa dhamaaday mabaanaa filayn taasee waxaanu tahay arigu uu ku barqaaya sanadka markaa si fiican baa loo iibsaday imikana uu socdaa waa adiga arkay kii ugu quruxda badnaaba imika soo dhacay oo Somaliland u hadhayba kii jile yaryara baa dhoofay laakiin kii waaweynaa ee wanaagsanaa Somaliland buu u hadhayba maasha allah aad iyo aad baad mahadsantahay adoo ku bilaabaya waxaan joognaa silada magaalada Hargeysa bal ariga sanadkan qiimihiisa ayaad nooga warramay intuu kala marayo iyo qaabka loo iibsanayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Naasir Maxamed Heeyo marka ariga horta waxa la iibsanay ariga ulxadun baa imka bilaabmay ariga kale ma ku dhamaaday ariga kale
ariga ulxada 130 waa la kala sanaya 120 waa la kala sanaya 110 waa la kala sanaya 100 intaasuu taagay yaa intaasuu fadhiyaa yamanu soo dhicin maanta oo maalintii toddobaad laakiin uu soo dhacaya qiimo inuu dhici doono inuu ka sii koro ku doono ilaaha bataa ilaahay baa ogtaa marka imka intaasuu taagay saaka 130 120 100 intaasuu garaacaya ariga wacni laba intaasuu garaacaya waana ilaahay marka dadku aad ma iibsanayaan ariga maya wali arigin soo mudhicin arigin dadkii wali iibsanayay soo meegelin laakiin sagaaloodkii isdeeda sagaaloodkii baad dadku waxay iibsanayaan laakiin dadka si kala iibsanayay marka laakiin dadkii iibsanay wali saa ma wali ma masilada wali arigin dadkii iibsanayay qalanay ariga sanadkan maxaa u malaynaysaa inuu qaali gareeyay dee arigu waligii baa caynkaas iska ahaa ariga inta badan marba arigu soo bata mooyaane badi ariga 120 iyo 110 neef oo wacni bariyahan sanadada ma intaas iska taagnaa laakiin hadduu soo bato arigu waxa laga yaabaa inuu qiimo hoos u dhaco saasi rajinina